Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan waan idin salaamay walaalaha qiimaha badan. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta muddo dheer kadib aan kusoo laabtay youtube-ka kaas muddo aad u fog dhowr sano ka hor aan kusoo laabtay. Maanta waxaan rabaa soo laabashadeydii iyo kabacdi inaan idila wadaago buug aad u qiimo badan nolosheydii wax badan ka bedelay markaan akhriyay arkay waxyaabo badan oo nolosha ku saabsan meel walba waxaa iga tusay marka buugga wuu dheer yahay laakiin qodob ayaan rabaa inaan idin soo gudbiyo aan idin soo wadaago. Qayb walbana waxaan ka bixiyay micnaha fikir ama gunaanad ama wax inaan ka bixiyo micnaha aragti ah fahantay. Marka aniga iyo idinkaba inala anfaco fahanteen. Maanta waxaan guda galaynaa marka qaybta koowaad ee buugga aan guda galaynaa. Buugga magaciisa waxaa la yiraahdaa Hungurigoorin. Hungurigoorin waxaana qoray Dr. Aid Alqarni. Buuggan wuxuu qalbiga ku dejinayaa xilliyada adag wuxuuna na barayaa in murugada aan lagu nagaadin balse laga gudbo si kalsooni leh oo Alle lagu tiirsan yahay. Qodobka koowaad Hungurigoorin maadaama aad Muslim tahay oo leeyahay buug sama walaal haddii aad tahay Muslim waa maxay sababta aad murugoonayso? Quraanka Kariimka ah wuxuu leeyahay kuwa iimaanka lahow kaalmada u doonta samirka iyo salaada Allah ayaan la jira kuwa samra. Suurat Baqara aayadda 153 Allah wuu ogyahay waxaad ku jirto qof walba murugo ayaan soo marta laakiin haddii aad Alle ku xiran tahay qalbigaaga nabad ayaad gelaysaa. Sheeko dhiirigelin leh waxaa la sheegay in Imaam Axmed bin Xambal uu xabsi galay iyadoo aan waxba lagu haynin. Waxa uu galay xaalad murugo weyn ah laakiin ma uusan murugoonin. Wuxuu yiraahdaa markii la wareysto wuxuu yiraahday markii layga xidhay ayaan Ilaahay si dhab ah ugu xirnaa. Xabsiga wuxuu noqday masaajid aan Alle kula xiriiro. Taas macnaheedu waa in qofka Muslimka ah qof kastoo Muslim musiibo walba ama soo wajahda qofka Muslimka musiibo soo wajahdo kale khayr ku jiro haddii aan Alle u leexan. Xadiiska Rasuulka Sallallaahu Calayhi Wasallam oo yiri waxaa jira mucjiso ay tahay arrinta mu'minka dhib walba oo ku dhacda khayr ayay u tahay haddii uu dhib la kulmo wuu sabraa taasna khayr ayuu ka helaa. Saxiix Muslim qoray buugga Saxiix Muslimka. Quraanka Kariimka waxaa jirta aayad Quraanka Kariimka waa daawo qalbiga lagu bogsiiyo gaar ahaan marka uu qofku murugsan yahay. Waxaa ku jira aayado qalbiga dejinaya qofkana niyadda u dhisaya. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. waxaa dhahdaa addoommadayda kuwa xadgudbay naftooda ha quusanina raxmadda Eebbe. Ilaahay wuu dhaafaa dhammaan dembiyada. Ilaahay waa dembi dhaafe naxariis badan. Suuratu Az-Zumar aayadda 53 aayaddan waxay si toos ah qalbiga ugu ridaysaa rajo waxayna dadka baraarujinaysaa in murugada iyo quusashada aysan ahayn dariiqa saxda ah. Dariiqa saxda ah yahay in Alle loo noqdo. Tusaalaha nolosha dhabta ah dad badan oo adduunka hodanka ah ayaa mararka qaar dareema farxad la'aan, niyad jab iyo xanuun nafsi ah halka dadka qaar oo sabool ahna
balse imaam leh ay ku nool yihiin xasilooni iyo farxad joogto ah. Farqiga labada qofood ama labadaas qofood waxaa ah qalbiga ku xiran, midna waa qalbiga ku xiran waaye xiran Alle iyo midka adduunyo kaliya ku xiran. Dr. Caid wuxuu leeyahay qalbiga aan Ilaahay ku xirnayn weligii ma nasto, xitaa haddii uu adduunka oo dhan helo. Maxaan ka baran karnaa qaybtan koowaad ee buugga Ha murugoonin? Murugadu waa qayb ka mid ah nolosha balse ma aha dhammaan nolosha. Qur'aanka waa saaxiibka ugu fiican marka qalbigu murugsan yahay. Xusuusta Ilaahay iyo dhikrigiisa waxay dejisaa qalbiyada. Rajada iyo kalsoonida Alle ayaa ah furaha farxadda dhabta ah. Gunaanadka sheekadan ama gunaanadka buuggan qaybtiisa koowaad, Dr. Caid wuxuu leeyahay ha murugoonin maxaa yeelay haddii aad Ilaahay leedahay adigu waxaad haysataa wax walba. Hadda Ilaahay macnaha ku xiran tahay waxaad haysataa wax kasta oo adduunka ugu baahato. Ilaahay wax walba gacantiisa ku jira. Nolosha waa imtixaan, waxa uu Rabbi ku baryayaa waa dulqaad, sabir iyo inaad weligaa quusanin. Halkaas ay noogu egtaa walaalahay qaaliga isku soo laabasho wanaagsan. Ma noqon doonto mid meeshaan ku eg fahantay. Waanu soo laaban doonaa oo sideennii hore ayaa barnaamijyadeennii usii wada doonaa insha Allah. Buuggan waa sidaan u bilaabnay horena aan usii socon doonaa insha Allah hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Like saara, commentiga faragtidii ka dhiibta sidaan sax u wada midnaa wax ka bedelo ama wixii fikir ah heesaan nala soo wadaagtaan iyo qaabka wax u jeedinaan fahanteen. Subscribe na saartina ha ilaawin fadlan subscribe ii saar, like-na ii saar, commentigana fikirkaaga iigu soo dhiib. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waa mahadsantihiin dhammaantiin.